xil iyo nidaam iyo kala sarrayn bay u samaysay ninkii xaaskiisa waa laba ruux waxaa ka dhaxaysa nolol baa ka dhaxaysa waad siman tihiinoo isku awood baa tihiin lama dhihina waxaa li arrijaalu qawwaamuuna cala annisaa waa laba ruux keliya waa inay kala dambayn jirto wa ilaa noloshu waa fasaadaysaa samadan iyo dhulalkan markuu alla ka hadlayay wuxuu uhi low kaana fiihimaa aalihatun ila allahu lafasadata samadan iyo dhulalkani hadday laba ilaahoo isku awooda jiri lahaayeen way fasaadi lahaayeen laba awoodoodoo isku mida meel ma waamuli karaan sidaas daraaddeed baa nebigeennu sal alla alay wasalam wuxuu yidhi saddex ruux iyo ka badan hadday safraan falyu'ammiruu axadahum mid iyaga ka mida amiir ha ka dhigtaan saddex ruuxoo socotaa maxay amiir uga baahan yihiin le'anna noloshoodaasi ay ka dhaxaysiyo wada socodkaasi wax u nidaamiyay u baahan yihiin sidaas daraaddeed diinteennu waa diin nidaam waa diin kala dambayn waa diin ma aha fawdo ma ah diin wax kharribid iyo rabsho ma ah diin wax qasid ma ah bulshada waxay ku tarbiyanaysaa maqla oo dhegaysta oo ka dambeeya oo qaata si noloshii u hagaagto oo barwaaqo loo helo oo kala dambayn loo helo oo midnimo loo helo oo awood loo helo laakiin madaxda marka la maqlayo warkooda la yeelayo laga amar qaadanayo waxay ku xidhan tahay waxay dadka amrayaanay farayaan inuu shareecada waafaqsan yahay maxaa yidhi nabigeenna wuxuu yidhi sal alla alay wasalam innama ataacatu fi lmacruuf cid amar kugu leh amarka aad ka qaadani waa markuu shareecada uusan ka bixin madaxda ku ah waalidka ha noqdo culimo ha noqdo amarkiisa waxaa la qaadan hadduu shareecada khilaafsin hadduu shareecada khilaafo falaa samca walaa taaca warkiisa la yeeli maayo lana aqbali maayo labada waalid rabbi tabaaraka wa tacaala markuu ka hadlayey oo xaqooda xaqiisa uu daba dhigay rabbi tabaaraka wa tacaala alla wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala hadday xumaanku amraan ha ka yeelin labada waalid ha yeelin walaa madax ha yeelin walaa culimo ha yeelin xumaan shareecadu diidday hadday ku amraan ma yadhay sidaas daraaddeed cid walboo amar kugu leh amarkiisu waa inay shareecadu way ku xidhan tahay haddii kale shareecadaa la raacaya amarka rabbi baa ka weyn amar kasta saas daraaddeed baa nebigeennu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi kamaa fii saxiixi muslim madax baa idiin imaan doonta xilkiinna qaban doonta madaxdaa iyadaa waxaad ku diiddaan iyo waxaad garataanba way la imaan doonaan wax shareecada khilaafsanna waad ku arki doontaan wax shareecada waafaqsanna waad ku arki doontaan seen ula dhaqannaa madaxda noocaasa nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh waaalih wasalam faman ankara faqad bari xumaantooda ruuxii inkira beri buu ka noqday waa ka fayoobaaday waman kariha faqad salim ruuxii kari waaye inuu inkiro oo keliya qalbiga ka kahda oo dhibsada asaguna nebigu wuxuu yidhi sal alla alay slam waa badbaado waa nabad galay walaakin man radiya wa taabaca madaxdaasi xumaantooda ruuxa raalli ku noqda kuna raaco ugu kaalmeeya kaasi waa halaagsamay kuma haya kaasi sidaas daraaddeed ayi waaxid oo allah tabaaraka wa tacaala iyo rasuulkiisa ka soo hadhay amarka ay bixinayaan iyo sharcigay samaynayaan iyo waxa ay ummadda u sheegayaani waa inuu sharciga ilaahay ku xidhan yahay atiicu allaha wa atiicu arasuula wa uli lamri minkum arrinkaasi waa qodobka labaadoo kala dambayntay shareecadu rabtaa masaalixda guud waxay ku taagan tahay kala dambayntii ismaqalka waa midda maanta ina burburisay waay ismaqal la'aanta isyeelid la'aanta isindhabuuxin la'aanta isgarab yaaca waa midda masaalixdeennii guud burburinaysa meel walba sidaas daraaddeed ismaqla oo isyeela oo kala dambeeya oo nidaamka aqbala oo ka dambeeya noloshiinnaa ku hagaagaysa qodobka saddexaad ee nebigeennu sal alla alay wasalam dardaarmay waxa weeye wuxuu ka warramay nebigu sal alla alay wasalam ciddii noolaata gadaashay oo idinka mida ciddii nolosha igaga dambaysa oo idinka mida wuxuu arki doonaa waxaan maanta jirin oo muxuu yahay iskhilaaf aad u fara badan oo ummaddan dhexdeeda dhici doona ummaddani way kala tegi doontaa way iskhilaafi doontaa nebi maxamed wakhtigiisii ummaddu isma khilaafin xilligii khulafada iyo xilka ay hayeen isma khilaafin hal dhinac baa loo jeeday
وجرت مسألة هوغانك يا سياسة دي خلاف صحابة الأحمري لكن دين تيدا اسكمين خلاف النبي محمد صلى الله عليه وسلم خلاف بإيمانتون خلاف كاسي حدك وقارسي سيا وخلاف آدو بضب النبي صلى الله عليه وسلم حديثك كلنا واكا كوفا السيريو تضباتني يصدح فرقائي كوحود بعد قيب سمي دونتان ومدن وكلا بيح دونتان طيب هذه ليس خلافه وآفدا يا عذر كاسي ومدن كرعو نبي محمد ومحا حلا محابة بهداء شدكين كقبحنا سين وقبت بادنا كوحب ربضا قروبيو طوائف وميد والبشاقنا يإنو يساقوا حق ليه وميد والبشاقنا يإنو يساقوا كتابك إليه السنة دي النبي حيو وميد والبلاية هي أنيقا قرتي يشدكي هيا ككلنا وخلدية هي حقين كبحنا سين سوبت بادنا النبي صلى الله عليه وسلم مركو عذر كالشيقي داودينا وطبردقين بدبادة مربتها فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وان وريري ودادان وروريي إركان أكاتشي لا أقبل مايو عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي طريقة إذا قبصدا مدحذا حلك إيقادن بيسي خلفاء دي أبو بكر عمر يا عثمان يا علي طريقة يضي أي كتغين قبصدا middaa iyadaa ku dhaga gaws dambeedka ku qaniina gawska ugu dambeeya ku qabtasayna idinka fakanin wataa badbaadadu ma taqaanaa sunnadii nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam xagee buu maray sidee buu dadka ula dhaqmi jiray sidee buu rasuulku sallallahu alayhi wasallam saxaabadiisa ula dhaqmi jiray sidee buu rabbigii cibaadadiisa u samayn jiray sidee buu ummadaha kaliya gaalada iyo kuwa khilaafsan ula dhaqmi jiray طريقة النبي محمد حقين مرتي صلوات ربي والسلام عليه ما تقانا هذا أنا قول سيدو صمين كرتاوا سيدو قاضي كرتا دون تبت باددو وتا ما أنت خلاف كي النبي محمد شيخ صلوات ربي والسلام عليه انتو سنبركو جيريو ذا وحي كذب واب اللوضي حق الدين تي عقيدة خوارج بحضي شيعة بحضي جهمية بحضي فرق بصوب بحي مقعيا صوب بحي معتزلة صوب بحضي طوائف بصوب بحي سنة هي طريق النبي كتن خلاف صلى الله عليه وسلم حق سياستنا أورو هي السياسة هي الدولة هي مدح إسخلاف سنة هي السياسة إسهردين يا صابعي هي الطوائف إسلين يسيا مسلمين سيفتا إسوقات يودق على مي حقين آدنا رسول كلا حقيقو حقاقنا عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده سنة برو ويقرنتهي صحيح البخاري بيكون قرنتهي صحيح مسلم بيكون قرنتهي سنك يا مسانيد بيكون قرنتهي أيضا أول إلاليي أول حفظيي أول طوري بي قرنتهي ماشي إذا كأغو أو كبرو كدبنا مركات برتو أيضا قبصو أو كدق ننك لنا وحكدق يسني طريق النبي صلى الله عليه وسلم مر سيدا ساد أدون كاقي آخر هذا كوبت باديسا نبي محمد صلوات ربي والسلام عليه تاسو إلو قتك حلقة تاني دعضو ما أنت إنا هيست طريقة بدادو وكا لبا معها صدحنا معها وهل طريق واحد عليكم بسنتي جيد كان مري انتاد اوغاتان وضبرتان مرأ او قبصدا كون الدقا إلى الرسول كنت المامي صلى الله عليه وسلم حلقة سي أمدو كلا تكتو روح السنة دي سهيستو طريقي سكود دقاني إنو لمي دي هيسيدو الروح لنبيل دبقى قعنتك وهي وكالي دنبل طبعا مدة انت الليك بعد قعنتك وهين كرتا يعني أمدي باكو خلافسا خلقي باكو قرم مري عداديسكا دبكا دقالنكا دعايدا هو آبيالين دنبيش هذا هيسو كل سنة النبي صلوات ربي وسلام عليه هي طريقي صلوات ربي وسلام عليه بعد دوتا قولوا كأفراد الرسول كانوا صلى الله عليه وسلم هو حديث كقدر دار مي وحوي waxaa imaan doonta rasuulku sallallahu alayhi wasallam marirma farabadan oo dib laga keeni doono oo maanta jirin oo diin la idinka dhigi doono muhdatha la yiraahdo wax kasto diin la idinka dhigo dib laga keenana waa bidco bidca walbana waa baadi iska jir kitaabka quraanka ma ku yaala ha qaado ahadiistii nabiga sugnayd ma laga helay ha qaado صحابتي السلف كي ما لغا حيا ها قادو
halkaa ma laga waayey yaan lagu lugoynin wadaad yuusan kuu suusuubinin wadaad yuusan kugu khaldin wixii kitaabka ilaahay iyo sunnada nabigeenna laga waayo rasuulku wuxuu yidhi sal alla alayh wasalam iska jira wax dib laga keenay oo wadaadda malmaluuqeen oo kooxo iyo dariiqooyin keeneen diin idiin noqon mayse waa baadi naartayna sababkuugu noqona iska ilaali seed ku kala garan kartaa shaygana ma dib baa laga keenay mise wakhtigii nebiguu jiray oo qur-aanka iyo sunnadaa sheegay barashihii aqoon bay u baahan tahay iskama keeni kartid intaad iska fikirtood mala awaasho iskama keeni kartid mana kala sooci kartid maxaa qur-aanka ku yaalla maxaanse ku oolin maxaa axaadiista nebiga ku sugan maxaanse ku sugnayn maxay khulafadii ka tageen maxaysan ka tegin maxaa dib laga keenay maxaase wakhtigii hore jiray ma kala garan kartid ilaa inaad aqoonteeda yeelatood cilmigeeda yeelato wey sidaas daraaddeed badbaadadii wataa alla ka baq kala dambaynta ku dadaalo fawdada iyo qaska iska ilaali khilaaf baa imaan doona ummadda dhexdeedee waxaad kaga badbaadaa dariiqii nebiga iyo dariiqii khulafada raadi oo qabso waxyaalaha dib laga keeni doonee bidcooyinkeen diin ahaynee qur-aan iyo sunno aan loo haynin ha isku lugaynina iska ilaali afartaa qodob haddaad qabsato dardaarankii nebigeenna weeye salawaatu rabbi wasalaamu calayh aakhiradaaduna waa kuu badbaadaysaa adduunkaaguna waa kuu badbaadayaa haddii aad yeeli weydo falaa taluumanna ilaa nafsaka adigu unu is-eed markaas maanta maalin ahayn baad farta dhexda ka qaniini wadaadku lugooyena waxba kuu tari maayo shafaacana kuu samayn maayo kuuna ergayn maayo koox ku duufsatayna maalinta qiyaamada waxba kuu qaban mayso ilaahay hortiisana kula imaan mayso waxna kuu tari mayso adna wax u tari mayso naftaada maslaxadaada dantaada sidaan reer hebel iyo qabiil waxba kuugu qabanayn oo ugaas iyo suldaan uusan waxba kuugu qabanayn oo madaxweyne uusan waxba kuugu qabanaynin ayaa wadaadku lugooyo oo diintaada khaldayna uusan waxba kuugu qabanayn sidaas daraaddeed naftaada iyo aakhiradaada ninna yuusan kula wadaagina adigu saad ku badbaadi lahayd qabso sunnada nebigaaga kitaabka rabbi nebi maxamed wuxuu ka tegey sal alla alay wasalam middaa iyadaa ku dhag gowsdambeedka ku qaniin ku mitid ilaa aad ku geeriyooto sidaasaad ku badbaadiya salluu وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين